Abaartii ugu darneyd muddo 500 oo sannadood ayaa ku dhufatay qaaradda Yurub, taasi oo keentay in digniino istaba jooga laga soo saaro 5tii sannadood ee ugu dambeysay. Hay'adda Midowga Yurub u qaabilsan abaaraha ayaa soo saartay warbixin faahfaahsan oo ay kaga warramayso marxaladda ay marayso abaarta ka taagan Yurub. Dhul fara badan oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa marka ka dambeysa sii qalalaya iyagoo ay koreen webiyaal fara badan oo ku yaala qaaraddaas. Khubarada ku takhasustay cilmiga deegaanka ayaa u aaneynaya isbeddelka cimiladu inuu ku dhuftay qaaraddaasi iyo gebi ahaanba dunida. Inta badan wadamada Yurub iyo dhulkeena Soomaalida ama Afrika way kala duwan yihiin marka la yimaado dhinaca miyiga. Miyiga qaaradda Yurub inta badan dadku waxay ku tiirsan yihiin beeraha iyo xoolaha nool, balse inagu waxaan si 100% ugu tiirsanahay waa xoolaha. Miyiga qaaradda Yurub waxa uu isku bedeli karaa haddii la waayo roobab iyo in ay webiyadu guraan, xaalad ka sii darta marka ka dambeysa, iyadoo la sheegayo in ay dunida soo food saari karto macaluul ama markaasi cunto yaraan sii baaxad yeelata, maadaama inta badan wadamada Yurub ay soo dhoofiyaan qamadinka, galleyda iyo sidoo kale sarreenka. Warbixinta ay soo saartay hay'adda Yurub u qaabilsan dhinaca iyo isbeddelka cimilada ama abaaraha ayaa farta ugu fiiqday dalal dhowra oo ay ka mid tahay Boortaqiiska, Netherlands, Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska iyo dalal kale oo dhowra oo markaasi ku yaala qaaraddaasi. Sidoo kale waxaa ku jirta waddanka Ukraine oo soo saara qamadinka ugu badan iyo sarreenka ugu badan abid. Khubarada ku takhasustay dhaqaalaha ayaa iyaguna sheegaya in ay dunidoo dhan soo food saari karto dhaqaale xumo tii ugu darneyd abid, maadaama muddo 500 oo sannadood abaartii ugu xumeed ay ku dhufatay Yurub, maadaama Yurub soo saarto wax soo saarka dhinaca cunnada ay aad ugu fiican tahay qaaraddaasi oo ay u dhoofiso wadamo fara badan ama qaarad ilaa ka qaarad adduunka oo dhan. Haddaba waxay sheegayaan khubaradan ku takhasustay dhinaca deegaanka iyo culimada ku takhasustay dhinacaas iyo dhaqaalaha in ay dunida soo food saari karto marxalad aan abid horey loo arag marka la eego mucjisooyinka dhacaya ee waqti xaadirkan ku soo beegmay, iyadoo ay sii jirto marxalado qallafsan, dhaqaale xumo iyo cunno yari abidba dunida hore uga soo jirtay, ayaa haatan la sheegayaa in abaartan ay uga sii dari karto. Maxaad kala socotaa abaarta nooceeda aan horey loo arag ee ku dhufatay qaaradda Yurub? Calaamadaha muuqda ee ay ka mid yihiin abaaraha ka jira qaaradda Yurub iyo sidoo kale meelo badan oo dunida ah. Abaartan waxaa dheer masiibooyin kale oo dabiici ah kuwaas oo aan noocooda horey loo arag abid. Waxaa ka mid ah webiyo aan abidkood guri jirin oo barwaaqo ahaa kuwaas oo mari jiray dhulal fara badan oo Yurub ka mid ah, iyo sidoo kale webigii Furaat ee dalka Suuriya. Guritaanka webiga Suuriya ee Furaat ee caanka ah ayaa la arkay magaalo ka soo baxday goobtii uu ka guray biyahaas webiga. Arrintan waxaa si weyn loogu aaneynayaa isbeddelka cimilada, laakiin arrinku waa Rabbi tala u daa, maxaa yeelay xaaladdu way ka sii daraysaa. Talow ma waxa la gaadhay saacadihii qiyaamaha? Arrimahan u muuqda cajiibka ah ee aan abid hore loo arag. Wadamada Carabta gaar ahaan Khaliijka, saxarahaas ayuu roob helay bishan 8 iyo bishii 7 ee sanadkan, arrinkaas oo aan abid hore u dhicin. Arrinkan ayaa ah mucjiso ku cusub adduunka oo ah markii ugu horreysay ee la arkayo, taas oo muujinaysa mucjisooyinka rabbaaniga ah ee ku soo badanaya dunida. Ma laga yaabaa in saxaraha Afrika ee wadamada waqooyiga Afrika ay isku beddelaan saxarahaasi dhul cagaaran oo barwaaqo ah sida Yurub oo kale? Wadamo fara badan oo Yuruba waxa ku dhufatay abaar aan nooceeda horey loo arag oo qallajisay wax walba, iyadoo webiyaasha qaarkoodna ay guraan. Haddaba abaarta lagu sheegayo waa loo kala nugul yahay, laakiin adduunka oo dhan waa mid haatan ka jirta gees ilaa gees. Laakiin waxaa jira dhulal barwaaqo ah oo barwaaqo soorana, laakiin aad ayaa lagu kala jilicsan yahay saameynta ka dhalata abaarta. Waddankaas lagu magacaabo Spain iyo sidoo kale waddanka Faransiiska ayay aad ugu dhufatay abaartan aan abid hore loo arag. Qaaraddaasi Yurub sidoo kale waxaa iyadana ku habsaday sanadkan dab aad u xooggan oo baabi'iyay dhulkaymeed aad iyo aad u ballaadhnaa oo cagaarnaa, kaas oo hal mar leefay inta badanna qaaradda Yurub oo uu dabkaasi maray. Sidoo kalena isbeddelka cimilada arrinka loo aaneynayo ayaa heerkulka kulaylka ayaa cirka isku shareeray oo xaaladdu khatar gaadhay ilaa dadka loogu baaqay in ay guryaha joogaan.
mucjisooyinka rabbaaniga ah iyo calaamadaha soo baxay waa kuwo mucjiso ah. waxaa jira goobo ay webiyaashu ka gureen oo lagu arkay qoraallo la qoray kumanaan sannadood ka hor webiyadaas oo lagu qoray haddii aad aragtaan qoraalkan waa abaar aan nooceeda horey loo arag, taas oo laga yaabo in ay dadyowgii hore haddii ay abaaro ku dhufteen ay calaamadaasi ku qoreen kadib markii uu webigu usoo buuxsamayna ay gunta hoose ee dhagaxaasi lagu qoray. waa mucjisooyin aan abid horey loo arag. waxaa laga yaabaa dalal fara badan oo saxaro ah inay isku beddelaan barwaaqa sooran. wadamada carabta gaar ahaana khaliijka, waddankaasi isku tegay imaaraadka carabta, roobab laxaadle ayaa ka da-ay oo meel walba xaadhay. magaalooyinka qaar ayuu harqiyey daadadku iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi. arrintaas oo ah arrintii ugu horreysay abid ee la arko isagoo xilligan oo aan looga baran uu ka da-o waddankaasi iyo gebi ahaanba wadamadaasi khaliijka carabta ee saxaraha. guritaanka webiga Furaat ee Suuriya waxay ahayd mucjiso, iyo sidoo kale ilaa iyo waddankaasi Ciraaq webiyaal dhowr ayaa guray kuwaas oo ay kasoo horbaxeen ama ay kasoo baxeen meelihii ay ka gureen magaalooyin qarsoomay. magaalooyinkaas ayay dadka khubrada ah sheegeen in laga yaabo inay suurtagal tahay in ay fulkaana qarisay kadibna ay biyaha webigu dul mareen. lama dareemi karo ama markaasi baaritaanada ay sheegayaan waa kuwo u dhigan noocaas oo kale in ay halkaasi fulkaana ka qaraxday kumanaan sannadood ka hor kadibna uu webigu dusha sare ka maray biyaha. mucjisooyinka sii badanaya ee ay ka mid tahay abaarta ku dhafatay Yurub oo abidkeedba lagu yaqaanay barwaaqo ayaa keentay in wax badan laga qayla dhaaniyo isbeddelka cimilada. arrinka loo aaneynayo Ilaahay ayaa awood leh, isaga ayaana og dhinaca wax u maamulayo. maxaa yeelay waxba suurtagala dalal saxara ah oo aan looga baran abid in ay wax ka soo baxaan waxaas gacanta lagu beeraya aan ahayn in ay hata isku beddelaan dhul barwaaqa oo cagaaran gebi ahaanba oo ay ka mid yihiin waqooyiga Afrika iyo sidoo kale wadamadaas isku tegay imaaraadka carabta uu ku jiro ee wadamadaas carabta. alla weyne isaga ayay awoodiisu dhammaystiran tahay, raxmaadkiisana xilliga xilli uu doono ayuu shubi karaa. laakiin mucjisooyinka aadamaha ku cusub ayay ka mid tahay in aan waxyaabo horey loo arag la arko, taas oo ay suurtagal tahay ayaa la leeyahay in la gaadho ama markaasi sida loo badin karo ama markaas ay dad fara badan oo muslimiin dareensan yihiin saacadaha yawmal qiyaamaha. waxyaabaha uu nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu hore inoogu sheegay, sida marka webiga Furaat uu guro in halkaas ay kasoo bixi doonto buur dahaba kadibna ay dadku isku dili doonaan oo la isku layn doono.